halkan tacsiin marka koowaad uga dirayaa dhammaan shacabweynaha gobollada Sool iyo Sanaag ee Cayn arrinkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee xasuuqa ahaa rag iyo dumarba ay ku dhinteen iyagoo dadkaasi ay yihiin dad dulman oo kacdoonkuna uu ka kacay dilal fara badan oo 15 sannadood soconay waxaan leenahay intii ku dhimatay ilaahay naxariis janno siiyo intii ku dhaawactay ilaahay u bogadiyo waad ogtihiin Laascaanood 15 sano ugu dambeeyay dilal qorshaysan baa ka dhacay in badanna waa laga hadlay maamulka Somaliland isagu markaa deegaanka joogayna kor iyo hoosba waa loola hadlay mar kasta oo lala hadlana hadalka waxay ku soo ururinayeen talaabaan qaadana iyo iyaga islaaya waxaan leenahay markaa arrinkani maanta dhacay ee hadraawi ugu dambeeyay ee xasuuqu ka dambeeyay haddii dadku ay kaceen oo ay dareenkooda muujiyeen ma ahayn in xabad lagu jawaabo arrinkaasi arrin aan aqbalanana ma aha wax ummaddu ay aqbalaysana ma aha waxaan leeyahay markaa maamulka Somaliland isaga mas'uuliyadda qaadaya dadka la laayay isaga ka mas'uula waxaan leenahay si aan fidmo kale u dhicin ka bax magaalada guud ahaan dalka oo dhan ka bax taasi waxay keenaysaa inaan cid damba dhiman taasi waxay keenaysaa in waxa weeye la kala badbaado waxaan ku baaqayaa anigoo garaadkii gobolka ah in ciidamadu ay ka baxaan magaalada dhulbahantow waad ogtiin xaaladda aynu ku jirno waanu idin sugaynaa